السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كسر هذا يوتيوب كيني عربي تكنولوجيا في انستيتيوت. أهلا وحنا قبرتين علمتني كبحجتي لغة الصومالية. وحنا هلك كسي وني كورسيديني أما برنامج كيني أكسس داتابيس أوفلاين. إنه كسر كده ترنا 10 فربضن 10 كي قد بي واحد كسر قادني ريليشن شيب سيالبا تيبل ليش وحده وحنا ما تقاضينا 10 آدي مهمة. horta waxaan kusoo guda jirnay ama barnaamijyadan office program waxa ka mid ah access database ka imika ku jirno barnaamijka kale caanka waxa loo yaqaan maxay excel barnaamijka xisaabaadka maanta waxaynu xiriir ka dhaxaysan laba barnaamij oo midna waa kii wax lagu xisaabsan jiray oo excel database kana joogno midna waa access keen maxaan hadda xiriirka ka dhaxaysan maxuu yahay waxaynu xiriirkan maanta ka dhaxaysan waxa barnaamijkan excel saga waxun baa lagu xisaabsadaa لكن إمك أكسس داتابيس كنا حمر محسابي سو داتابيس كسبوها هي أوفلاين كا إمك واحد سوينا بالمثل واحد كسوق قاضينا calculating result examination أيام هكذا كل حسابنا أما كل ديار صينا واحد يجينا مثلا كل ديار صينا واحد يجيسنا محي أكسس داتابيس كنا مركا حرير كان كده حسينا واقع أنا بلون كسر دواد 10 واحد ديار صينا سامبل أو calculating result examination واحد نورنا إنه والنمبر كي student name waxaan rabnaa artigaas wuxuu galay wuxuu dhigtay word iyo excel iyo access saddexda course bay ku soo gudbisana waxaan doonaa dabaan soo saarno totalkiisii iyo averagekii iyo result saddex qof afar qof baan diyaarsaday waxaan qofka koowaad iyo ka labaad labada markaan diyaarsano afar qof quraan ka dhigaynaa وسوي رتشيدنا يسوي بمحي أفرتقف وكا أفرتقف وتسوي ديارتين ساسا يرتشيدية احنا رنا يا محي قف الكواد وحلدها غريب قف كلوادنا وحلدها أحمد قف كستحادنا وحلدها حمزة أرضي استحاد قف كشلنا أفرادنا وحلدها محي واي الوركي وحي كان تبان رأينا سقاشن اكتر كينا ما بيقلين اكتس كينا واحد كان ستيت احمد نوحو كان محيط 7 كان وحو كان 7 كان وحو كان ستيت تنية وصام بالمركة سألو قد يرصدنا هكذا كفاية سنسا ان شاء الله حمزة وحو كان 6 كان وحو كان 7 كان ما بيقلين وعن كدقنا من واحد كان 19 7 تضباطن بي كانت اكسل كي اكسس كينا waxay keentay maxay 19 aan xisaabin ardayga qaaliban soo saarna totalkiis total kama ka soo saarna xoreyna equal sum isku kayga bracket fro waxa tirada isku kayga maadooyinku galay ardaygaas laga rabay soo xiraya maadooyinkiisa oo dhan qortaad buu haystaa automatically isaga isku hagaajinaya inta kala dhan way soo jiidaysaa average ka taa العلسك waxa lagu helaa lana equal total ko kana oo loo qaybiyay inta maado yihiin inta maado waa saddex maado 3 u qayb average kana saas ku soo baxay waadi la fahantay kana soo jiidaya resultiga xaranaya equal aan ku saaraya if bracket for average ko kana duka weynada ama uu leekaado konton ama double quote waxaad soo saartaa baasay double quote ama double quote hadii ka yaraadana hadii soo saartaa maxay dhacay waxa la yiraahdaa bracketkii interval aan soo jiiday iyadana waka hadaba shan yara hagaajiyo formatka iyo waxyaalaha وانا يراه كاتشينيا انتنا كلر بان مرينيا marka wasiido diyaarsan lahayd result examination waan save gareynaya save as baan leeyahay desktop ka yidhi waxaan oranayaa waxaad igu qortaa calculating يشوف كريسيمك اسكو سو خداي انا الكو يدغي ديسكتوب كو يدغي وكا كالكوليت دامج كي غاكس كي باني مالي
axis ayaan usoo furana waxaan idhi halkan ay tegayna waxaan ku qoraynaa maxay ms axis halkaas ay yaallaa waan soo furayna waa kan databasekan isticmaala jirnay caabi schoolis waan furanayaa hadda waxaan doonayaa inaan barnaamijkan horta axiska waa nagayni waxa ma soo xisaabiyo laakiin waxaad wax kusoo xisaabsanaysaa maxay excelkii waay waxaan doonaynaa xogta in kusoo xisaabsanay ama barnaamijkii calculating result examinationka ahaa inaynu keenno maxay axiskeena waxaan tegaynaa external marna horta waa exportiyo axiskaada wax ka qaadaysa excelkaad geenaysa marna waa import linkiyo excelkaad wax ka soo qaadaysa ama meelo kale wax ka soo qaadaysaayo axiskaad keenaysa waxaan tegaynaa import link imika tegaynaa iyo source baa tegaynaa from baad dooranaysaa from file halkaad ka soo qaadaysaa fileka waxaan odhanaya waxaan ka soo qaadayaa excel halku ku yaala browse baan leenahay wuxuu noo yaalaa annaga desktopka maxaa kugu qornaa waa kan open baan leh open markaan dhaho okay baan odhanayaa halkaa inay tigta ku saarnaato waa muhiim waayo rowga ugu sarreeya ayuu u aqoonsanayaa first row wuxuu aqoonsanayaa sidaas oo kale imika inuu ugu soo saarayo ayuu u aqoonsanayaa heading ama ciwaan buu aqoonsanaya columnka ugu sarreeya imika haddaan ka qaaday caadi isdhex gelinaya laakiin rowga ugu sarreeya ciwaan ugu aqoonsan weeyaan markaad tigta saarto next baad leedahay next baad halkaana ku dhaafaysaa haddaba halkan 3 option buu ku siiyay wuxuu yidhi let access add primary key choose my own primary key iyo no primary key waxa weeyaan barnaamijku kaa sare accessku ha bixiyo primary keyga markana xoray anaa bixinaya isla fahan primary key muxuu ka dhigay eeg markaa eeg wuxuu ku soo kordhiyay halka id saarti barnaamijka bixiyay markaan ka qaadnay indii id ga inaga bixinayna eeg sideen ibu nagu tahay noogeen halkaan waxaad ka dhiganaysaa adiga ama no ama id wuxuu ku ahaa ayaad ku buuxsanaysaa next baad leedahay haddaba wuxuu ku yidhi table haan baa loo save garaynayaa sheetkaagana buuggaagana excelka aad ka soo qaadee maxaad ku qoraysaa waxaan ku qorayaa waan odhanayaa result enter baad leedahay halkaa wuxuu ku save import steps baad leedahay waa save garaynaysaa waay waka kaymka inoo soo galay haddaba halkaa cilad baa badanka ka timaada waad arkaysa averagekii noomuu soo saaray hash buu inoo soo saaray ciladaas wax kale ma aha barnaamijyada qaar baa diida saasoo kale u yaro durki soo arti wakaa imika inoo soo saaray waa excelkeeni baan kusoo xisaabsanay maxaynu kuxilsanay access databasekeeni offline-ka ahaa casharkaasina waxaan rajeynayaa inuu aada iyo aada muhiim u yahay wixii feedbacka insha allah waan idinka soo jawaabaynaa insha allahu casharkaasina waxaan rajeynaya inuu aada iyo aada muhiim u yahay casharka share gareeya like gareeya ogeeya khayr baan idin rajeynaya asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakatu